markaad reerkaaga tirsanaysidna aniga aad meel cidla igaga tegaysidna dhabarka ayaad iga toogatay. Assalaamu calaykum, soo dhawow. Waxaan ka hadlaynaa qabiil. waagii hore waxay ahayd qabyaaladda way ka yareed sidaan aan dareemayo. xiliyadan dambe aad ay usoo badatay, waxaana ka mas-uul ah social media iyo rususha u jooga rusul markaan leeyahay fariin-wadayaasha oo gudbinaya wacyiga dadka inay qabyaaladda ay sii fidinayaan oo wax ugu yar ay geysanayaan dadka qabiilka ka hadlo social media jooga. wax ugu yar aan isleeyahay way kugu saameyn karaan in qabiilkaaga adiga aad ka soo jeedid ay wax ka sheegaan, kadib midku asaga ka soo jeedo aad u xanaaqdid dad u qaadid. dhibaato walbo oo Soomaalida haysato meel walba ay degtana waa qabiil. asalka dhibaatadana haysata qabiil ayuu ka imaaday, ogolow ama diid. haddaana hadda wax laga qabanna sanadada soo socda iyo jiilka soo socda aad ay u saameyn doontaa. tafaraaruq iyo kala baxsanaantana horay ayay usii badan doontaa. calaamadan la samaysanayo way sii hoosay u sii kala dhici doonaan, ilaan waxaan hadday reer ay ku salaysan yihiin waa sal iyo raad ma lahan. yacni qabyaalad u fiirso ma lahan meel ay ku dhamaato ma lahan. tusaale ahaan qabiil weyn ayaa jiro, ninkan qabiilkan weyn uu ku faanaya, uu ku hoos jiraa, uu ku tashanaya, meeshu kuma ekaanaya bes intaana igu filan kanaan ku taagnaanaya ma dhahayo. mid kale jiro ku sii hoos jiro oo reer hebelaan ka sii ahayo oo laandheera, haddana mid kale uu ka sii deganaya, mid kale ilaa aabihiis uu ka tago. marka qofkan wuxuu isku haystaa dadka adduunka ugu fiican inuu yahay. markaasaa ilmihiina loogu sii sheekeynaya. waxa ugu horeeya la baro abtirkiisa waaye. waxaa leeyahay niyow nin bale ka dhacdaa tahay, awowahaaga wuxuu ahaa nin sidaana sidaan qabiilkana ka tahay. cid oo dad la mid ah adduunka aanan jirinaa tahay. ninka marka waxaa u diin noqonaysa oo waxa adduunka uu ka yaqaanaba ay tahay reerkiisa. qabiilka iyo qabyaaladda dad baa faa'iido ku haysta. dadka faa'iidada ku haysta waxay yihiin qofkan reer ahaan xil ku helay ama maamul ku helay, ama dadka wax soo doorta odayaasha iyo dadka u hadlo qabiilka isku keeno social media meelahan ka hadlo lacag wax bay ku helaan. laakiin inta ka soo hartay wax faa'iido oo ay ku haystaan maanta. tusaalaan kuu soo qaadanayo, gurigan waxaa iska leh dabaqan qof reerkeena iska leh. maxaa faa'iido igu jiro marka inuu reerkeyga iska leeyahay gurigan haddaan aniga degneyn maalin xataa aan gelaynin, inuu qof reerkeyga iska leeyahay iyo qof reer kale inuu iska leeyahay maxaa iga jiro. haye tusaale kale soo qaado, madaxtinimaa imaaday, qof baa la doortay. qofkan waa reerkeyga, qof reerkeyga inuu yahay oo ciddiisa keliya ka bisho, yacni familkiisa keliya ka bisha biilkuu ka helaa, iyo qof aanan reerkeyga ahayn laakiin waddadii aan mari lahaa oo dadka la mari lahaa, bangiga aan la isticmaali lahaa, adeegyada bulshada oo dhan mid qabanayo, anigana qayb aan ka ahay oo layla isticmaalayo waddooyinkii. keebaa faa'iido ku jira marka? si rational ah, si oo maskaxiyan uma fikiraysid markay qabyaalad iyo qabiil ay kusoo gasho. yacni maxaa faa'iido igu jirta? yani maxaan ka faa'iidayaa maanta oo dhan? calan reer inaan la luxo, magac reer inaan kor uga qaado, reer kale aan u gafo. teeda kale dhibaatooyinka lagala kulmo dad dhanaa leedahay isma geyno oo isma guursano. maxaad isku guursan weysay? maxaad isku geyn weydeen? yacni ma awowahoogadaa sidaan ahaa, abku abay sidaan yihiin, maxaa kaaga jira adiga? waxyaabaha dadka isku guursadana ka mid ah xasaba. allah xasabad waxaa waaye qofkan inuu ka soo farcamay nin taariikhda micnee bahalka galay oo kale. tusaale ahaan wax wanaagsan uu soo sameeyey. marka matalan ka soo qaad awowahayga tobanaad ama shanaada waxaa lagu ogaa inuu wax fiican soo sameeyey bulshada oo wax caan ah, qof oo faa'iido sameeyey adiga. marka aniga waxaad igu dooratay marka inaan ka soo farcamay qofkaas, anigiina faaruqa ahay, waxba ma hayo. yacni waxaan lagu ammaanaya awowgayga xabad iguma jirto, oo hadday maal tahay haddii cilmi tahay labadaba ma hayo. anigii waa ka dubanahay.
adiga faa'iidada kugu jiraysa marka ii sheeg. ma in noloshaada cariiri ay gasho aniga saas igu dooratid in keliya dadkaas ammaanaan oo nin reer hebel ka soo jeedo waayo ninkaas. teeda kale magaalaa tirsanaysa, magaalo hebel annagaa iska leh, magaaladeena waayo. magaalada waxaa kula degan reero kalaa kula degan. tusaale ahaan reerahaas dhabarkaad ka tooganaysaa, anaa idin maamulaayo. ama waxaad leedahay in okay let's say idinkaa maamulay, haye isku xuquuq ma nihin maa leedahay oo isku maaragtay amni ma helayno, meelaha anaga degno guryaha iyo lacagta isku si uma qaadanayno. anaga ninka second class citizen noqonaysaan oo dabaqada lamaad ee muwaadinimada galaysaan maa leedahay. yani maxaa ula jeeda magaalo hebel anaga iskale markaad leedahay maxay tahay? aye aan dhahno magaaladan idinkaa iskale. okay adiga shakhsiyan marka maxaa faa'iido oo kugu jiro? yani wixii aad leedahay unba faa'iido kugu jirta moogta. magaaladaas waxaa laga yaabaa waa leenahay meelaha ka qeylqeylinaysid guri iska danyar inaad ku degan tahay. oo teeda kale shaqada waxaa leedahay shaqada laangabyaasha qabtaan. war shaqadan maxaa u qabanaysaan iyo laangabyaasha qabtaan oo waxaan waa sidaan oo nin jeebkiisa maran yahay oo shaxaad raadinayo oo tuugsanayo haddana dad kale ku caanayo inay shaqaysanayaan oo shaqo la qabanayo. qabiilkii qabyaalad waxaad arkaysaa marka cudur maskaxiyan inuu yahay, wax faa'iidaha kugu jirto ma lahan. dad badan oo tirsanaysid qabiilkaaga aad ku tashanaysid oo leedahay alla reerkayga aniga aan kaaga dhawaado oo reer kale aan ka soo jeedo. sheekadan haddii hal shay aad ka faa'iidaysid waxay tahay qabiil faa'iidada kugu jirto fiiri. markaad reerkaaga tirsanaysidna aniga aad meel cidla igaga tegaysidna dhabarka ayaad iga toogatay. muuqaalka halkaasaan kusoo koobaya. haddaa ka heshay like saar. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.